السلام عليكم إذا لهانتين با داوديال kusoo dhawaada barnaamijkeeni shanta sheeko waxaanu maanta inii soo gudbinayaa barnaamijkeeni shanta sheeko ee aan horay iniigu soo sheegay daawadayaal haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe saar kana mid noqo asxaabta ku xiran channelkeena sheekooyinka maanta kusoo dhawow mowduuceena maanta Number 2 Cantar iyo Caybla Number 2 Cantar iyo Caybla sheekooyinka caanka waxaa ka mid ah tan jacaylkii Cantar bin Shidaad iyo inaadirtii Caybla oo sida uu ku heli lahaa dhibaatooyin badan u galay Cantar jacaylkiisa waxa uu ka tiriyay gabayo badan oo uu ku cabirayo dareenkiisa jacayl ee uu qabo Caybla iyo in dunida oo dhan cid uu ka doorsanayaa inaysan jirin Number 2 Jamiila iyo Butayna Jamiil waxa uu noolaa xilligii reer bin Umayma ay maamulayeen boqortooyada islaamka waxa uu jeclaaday Butayna oo ay qoyskoodu aanan ku qancin laakiin waxa uu ku joogi waayay markuu Butayna loo guuriyay nin kale aad ayuu uga gilgishay Yemen ayuu aaday oo ay reer abtiyaashii ku sugnaayeen muddo kadib waxa uu dib ugu soo laabtay Wadi al-Qura oo ay Butayna degneed waxa lama filaan ku noqotay in Butayna iyo ehelkeedii ay u guureen Sham iyo Suuriya waxa uu goostay inuu Masar u haajiro wadadii ayuu ka lumay ilaa uu ku dhinto isagoo markasta ay rajadiisu ahayd inuu Butayna arko ama uu dirs la noqdo maadaama ay cayb ahayd ninku inuu daba dhigto naag oo nin kala qabo gabayadii uu tiriyay beej ka mid ah haddaynu soo qaadano waxaa ka mid ah Butaynay naftu markuma soo xasuusato ilaa waxay ku dhawaataa inay go'do haddii aan isku dayo inaan isceliyo oo aan is adkeeyo waxaan is arkaa anigoo ilinta daadinaya oo aan joogi karin Number 3 Kathir iyo Jisad waxaa dhici karta in ay tahay markii ugu horeysay ee lamaanahan aad maqasho laakiin sida waaqica ah yahay lamaanahani waxa ay kamid yihiin lamaanayaashii jacaylku ugu darnaa uu haleelay Kathir bin Abdurrahman al-Aswad al-Khusha'i waxa lagu yaqaanay inuu kamid ahaa gabayaagii xilligii reer bin Umayma waxa aad loogu yaqaanay inuu aad u jecel yahay Jisad waxaaba lagu naanaysiiyay Jisad oo labadooda magac oo isku lamaan naaneys looga dhigay bilowgii jacaylkooda waxaa la sheegaa inay ku kulmeen cayl loo arooro beej ka mid ah gabayadii uu tiriyay quruxdeeda waxaa ka mid ah quruxdeeda wax walba oo kale way ka sidataa waa sidii xidig iftiin badan oo xidigaha kale ka dhex dhalaalaya Number 4 Qays iyo Layla Qays bin al-Mulaax waxa uu ku caan baxay sida uu Layla bint Mahdi uu ku jeclaa aabaheed ayaa u diiday inuu guursado nin kale ayaana loo guuriyay jacaylka Qays wixii uu ka samaysan karo ayuu ka samaystay dadkii ayuu ka go'ay dharkiisu wuu jeexjeexay ilaa loogu magac daro kii Layla ku waalnaa beej ka mid ah gabayadii uu caansanaa haddaynu soo qaadano waxaa ka mid ah waxaan soo agmaraa guriga Layla ay degan tahay markaas ayaan gidaarka dhunkasho kala daalaa gidaarka kalgacayl gooni ah uma hayo laakiin xadii degneed ayaan kalgacayl u qabaa Number 5 Qays bin Labnaa Qays iyo Labnaa waa Qays bin Dureex al-Laythi al-Kinani waxa uu jeclaaday Labnaa bintul al-Habab al-Khusaaciya waxa uu jacaylku u qaaday aragtidii koowaad ee uu indhaha qac ku siiyo xilli uu xoolo u waraabinayay waxaana la sheegaa inay isguursadeen laakiin markii ay caruur u dhali weyday ayaa hooyadii ka furtay si uu u tarmo oo fariiciisu aan u geyn maadaama uu madi ahaa laakiin markii uu furay ayuu ka shalaayay oo uu tiriyay gabayo uu ku muujinayo jacaylkiisa sida uu ugu xiisay iyo shalaytaha uu joogo gabayadii uu tiriyay waxaa ka mid ahaa waxaad u ooyeysaa Labnaa oo aad meel qudlaha kaga tagtay xilligii ay talo farahaagu ku jirtay haddii markii hore adduunyo oo dhan ay Labnaa ku ahayd maanta wax walba sidii hore way ka bedelmeen oo noloshu qiimo ma laha si kastaba ha ahaatee sida taariikhda aan ku aragnay ama waqti dhow oo aan sidaa usii fogeyn ahaa jacaylkii Boodhari oo sida muuqata inoo ah tusaalaha ugu dhow ee jacaylka dhabta ah ee dhanka Soomaalida haddii la soo qaato daawadayaal ma isweydiisay marnaba daawadayaal inaysan jirin qof haweeney ah oo u dhimatay jacayl dartii halka raggii ugu dhimanayaan ama ugu ilaanayaan intaan ku kulmayno barnaamij noocan oo kale ah